waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed halkan aan kula wadaago fariin aan u dirayno wadamada caalamka danjirayaasha dawladaha caalamka ee jooga dalka waxaa jira danjirayaal mararka qaar qora oo dira oo u soo dira dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed fariin aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga iyo ixtiraamka madax bannaanida dalalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa jamhuuriyad madax bannaan madax bannaanideeduna ay tahay mid buuxda oo sovereign state ah arrimaheeda guduhuna ay yihiin lama taabtaan lamana farageliyaan sida ay xuquuq leeyihiin dhammaan wadamada madaxa bannaan ayay Soomaaliyana u leedahay xuquuq madax bannaan Soomaaliya cidna doorashadeeda ma farageliso Twitterna uma qorto sidaasoo kale wadamada saaxiibka waxaan ka filaynaa inay ilaaliyaan madax bannaanida iyo wadajirka bulshada caalamka waxaan rabaa inaan runtii fariin adag halkan aan uga diro Soomaaliya iyo wadamada caalamka waxa ka dhaxeeya isfaham iyo xiriir wanaagsan waxa kale oo aad ugu mahad celinayaa wadamada wax badan la soo qabtay dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed mana ilowsanin abaalka ay nagu leeyihiin dawladahaas iyadoo abaalkaasi jiro haddana dawlad ahaan waxa aanu ku adagnahay ilaalinta madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aanu mas'uul ka nahay fariin kasta oo ka hor imanaysa madax bannaanida iyo gobonnimada jamhuuriyaddu waa mid aan la aqbali karin intaana waxaan rabaa fariintaa inaan u diro in laga digtoonaado oo ay tahay red lines ama khad axmara ama khad cas ku xadgudubka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dunidu waxay ku wada nooshahay isfaham istixgelin iyo ixtiraam sida ay dhigayaan dhammaan shuruucda caalamiga dal ka soo gudbi kara oo dal kale faragelin kara arrimihiisa gudahana ma jirto